habeenadan the algorithm waxa ii soo tuurtaa filmo yaryaroo romance ah oo really just beautiful storytelling. Marka this weekend waxaan daawaday mid la yidhaahdo Message in a Bottle. Fariintii dhalada ku jirtay film horaa laga sameeyey oo ay jilayeen Kevin Costner iyo Robin Wright. A beautiful story. Laakiin tan waa la yara bedelay, waa la yara amuureeyey. And happy endingna way lahayd, taasi happy ending may lahayn. Beautiful, laakiin happy ending may lahayn. The setting, this one Boston bay ahayd, taana waxay ahayd filinkii horena wuxuu ahaa North Carolina. Anyway, marka sheekadani waxay ahayd sheekaan ayaamahanba aanu gabadh ka wada sheekeysanaynay, gabadh dhalinyaro ahoo weli in search u ah obviously arrimaha qalbiga dee ilaahay baa nagu talaalayoo waa rajooyinka bini aadamku iska wada sito ma garanaysaa. You never really wanna weligaa koleyba dee odhan maysid ma garanaysaa. That's it, dib dambe wuxuu jeclaan maayo qofna ma yidhaahdo moogta. Marka inan baanu ayaamahan oo dhan ka sheekeysanaynay, inan bay isjeclaayeen for a long time. waxay rumaysan tahay inuu ahaa the love of her life. welina ay isjecel yihiin, laakiin somehow wax yaroo bilaa micno ah ayay ku kala tageen. mar kastoy dabcaan inay reconciliation sameeyaan ama ay dib isugu soo noqdaan, wax yaroo bilaa micnaabaa soo kala dhex gala. marka taasaanu ka sheekeysanaynay iyo sababta ay dadka isjeceli wax yaroo bilaa micnaha isugu qabsadaan ma garanaysaa. oo si yaroo fudud marar badan ay ugu kala tagaan. marka intii ka dambeysay oo dhan inankaayo inantaasi intii ay kala maqnaayeen, labaduba xidhiidhay galeen, midba mar buu yaro guursaday, laakiin xidhiidhadii ma shaqayn. marmar dee qofku wuxuu isweydiin karaa talow maanaa wax iga sii yihiin ma garanaysaa. It's very easy bini aadamku inay isweydiiyaan oo yidhaahdaan maxaa iga siiya talow aniga, dhibku maaniga, ciladu maanigaan lay wadi karin ma garanaysaa. waa wax dhaca. marka filinkan oo aad moodo sheekadaa inuu wax ka ogaa oo sheekadaa uu moodayay inuu iisii wadayo ma garanaysaa, ayaa igu soo baxay weekendkan Message in a Bottle new version. marka waa gabadh corporate ka shaqaysa oo company acquisition ka sameeya, iibsada kambaniyada kale ayay u shaqaysaa. She's an analyst, waa analyst. marka waxay samaysaa, waxay kambaniyada ay iibsanayaan ayay soo baadhaa. dee waxay ku advice garaysaa kambaniga in kambaniga ay doonayaan inay iibsadaan uu yahay mid caafimaad qaba financially, ama midaan caafimaad qabin oo ay dee ka waantoobaan ama inay iibsadaan. adu waxyaabahaasay ka shaqaysaa. marka waa gabadh aad shaqadeeda ugu wanaagsan oo maasha allah oo 36 jir weeye. marka at the peak ma garanaysaa of her career, halkii ugu sarreysay careerkeeda nolosheeda ka taagan tahay. nolol qurux badan bay isku dubaridatay. Boston oo magaalo qurux badanna bay degan tahay. shaqadeeda aad iyo aad baa looga jecel yahay. laakiin masiiba waxay kaga dhacday xaggii xidhiidhka. markay inan isbartaanba wax yar kadib wuxuu ku yidhaahdaa I don't think inaynu isku gelayno. marka sheekadu waxay ka bilaabmaysaa iyadoo aroos, iyadiyo eedadeed oo aroos doon lagu qabanayay ayay imanayaan. saaxiibkeeday kula ballansanayd inuu ugu yimaado. marka marba taleefonka eegaysaa, maxaa helay ninkii. markii dambe ay taxi u diraysaa, marka soo dhisa hey doontii dee way dhaqaaqi rabtaa ay kumeeyeen. markaasuu text message soo diray ornaya xidhiidhkan wuu dhammaaday, raalli baad iga ahaanaysaa because kuma geli karo qof sidaadoo kale ma garanaysaa aan doonayn de inuu naftiisa u hibeeyo qof. iyadii buu blame garaynaya ornaya
diyaaru ma tihid ila marka ma garanaysaa ilaahay doonayo inuu meel kaa saaro si uu kaaga saaro ma waayo ma garanaysaa ama qofka kale waxaan adiga kuu muuqan ha arko ama de siday doontaba ha noqotay adiga meel waxa lagaa tuso marka la doonayo meel in lagaa saaro si lagaaga saaro lama waayo inantii way muraar dilaacaysaa eedadeeda odhanaysaa hebel maayey dee doontii markaasay odhanaysaa wii dhamgareeyey eedadeeda weydiinaysa odhanaysaa maxaa siiya bisanka adiga sida noqday markaasay odhanaysaa ninkii waa i eriyey markaasay odhanaysaa don't worry about it waxay doonaysaa inay jiirab ku samayso ma garanaysaayo waa sidaad u eeg tahay eeg fariidnimadaada eeg kalsoonidaada eeg markaasay odhanaysaa kalsoonida iga muuqata maxay tahay ninka ku helaa nasiib buu leeyahay meel ma garanaysaa fiican oo lagugu dhamgareeyo ayaad joogtaa aroos baa timi ma garanaysaa si kasta isugu daydo inay marxabaysiiso oo ka qosliso oo ma garanaysaa jawiga u beddesho oo muudhka u beddesho dee waad ka garanaysaan qof dumping is not good ma garanaysaa it's a terrible feeling gabadhii eedadeed markaa way iska ciyaaraysaa dance floorka iska gelaysaa way iska waqtigeeda iska qaadanaysaa iyadu meel bay iska fadhidaa miis bay iska fadhidaa sidii caadadu ahayd bay dee su-aalo badan isweydiinaysaa maxaa iga siiya maxaan galabsaday bal da'da aan haddeer marayo eega qof xun ma ihi haddaan xataa wax bedeli lahaa may ii sheegaan waxay u baahan yihiin inay bedelaan marka waxaa laynooga dhigayaa dee in dhowr jeer arrintani ku dhacday oo hore eedadeeda dance floorkii ka soo baxayso oo markaasay odhanaysaa halkan unbaad fadhidaa dooni maysid inaad ciyaarto markaasay odhanaysaa iga daa muud maaye ma ciyaaraye ma doonaya inaan ciyaaro markaasay odhanaysaa dhalay usoo qaadaysaa dhalooyinka saa loo xidho ee almost lingaxa wataa lingaxa oo biyo laga cabay ayay soo dhifanaysaa markaasay odhanaysaa okay dhegayso shandadeediina intay furto notebook yaroo ugu jiray kala soo baxdo warqad baad qoraysaa oo ayaan qorayaa markaasay odhanaysaa jacaylka ayaad warqad u qoraysaa laftiisa su-aalahan aad qabto oo dhan ayaad ka jawaabaysaa jacaylkii ayaad odhanaysaa kumeeyey qofkaa tahay baad u sheegay deetana dhambaalkaad diraysaa oo see u diraa biyahaad ku ridaysaa bay ku tidhi markii hore waxay odhanaysaa waa waali waxani waxaa samayn maayo markaasay odhanaysaa waad samaynaysaa please samee dance floorkii bay iskaga noqonaysaa xabaar bay sugaysaa markaasay odhanaysaa what do I get to lose maxaa dee iga xumaanaya waan qorayaa waa iska qorta markay dhowr layn qortay yaa taariikhda iyo sababtay warqadan u qorayso iyo shakhsiyaddeeda ay ka waranto dhowr layn ayay yaro dhigaysaa qalinkii dul saaraysaa cabaar bay sugaysaa hareerahay eegeegaysaa waa sili bay odhanaysaa waxna way laalaabay shandadii ku riday haddana way fikiray waxay odhanaysaa waa runteeda sidii idadaa tidhi what do you got to lose waa la soo baxaysaa haddana markaasay burqanaysaa waa burqanaysaa alla markaasay bilaabaysaa inay si fiican u qorto yaa markaasay odhanaysaa qof waxaan ahay qalbi wanaagsan qof waxaan ahay dadka jecel inaan caawiyo qof waxaan ahay dadka u farxa qof waxaan ahay ma garanaysaa shaqadeeda jecel oo ma garanaysaa waajibkeeda jecel inay gudato oo mas-uula qof waxaan ahay dadka aan ku wacad furin oo ballanta ilaaliya qof waxaan ahay ma garanaysaa qalbi wanaagsan oo dadka la ooya qof waxaasoo dhan bay qoraysaa ma garanaysaa ma ihi qof dee wax weyn qofka bini aadankaa ka raba qof sidaan ku ahay igu ahoo magaranaysaa aanu isjecel lahay equaliyo ma garanaysaa daacad isu nahay oo aanu isku meel ku soconno oo nolosha isla wadaagno uun baan raadinayaa ma garanaysaa markaa dee waan ku sugayaa kumee ayay ku dhammaynaysaa moogtahay magaalada ay joogto magaceeda oo Boston I think naanaysteeda inay tahay Bean Town iyo number weeye emailkeedu at Yahoo yaa warqadii bay si dhuuban intay u laabto yaa ay dhaladii ku ridaysaa hareeraha intay iska eegto ayay la yaro dhaqaaqaysaayo markaasay markay aragto inaan cidina xaggeeda eegeyn yaa ay baddii ku tuuraysaa way iska ilaawaysaaba yaa 3 bilood kadib
ayaa wiil meel river ah maraya xataa bad maaha river buu maraya ila biyaha baddu waxyaaba ay soo tufto badan baa ma garanaysaa riveriskiyo webiyada iyo gala ma garanaysaa leegskiyo inaan meel leega ku lugaynaya I think inay leeg ahayd leeg bay u ekayd river bay u ekayd somewhere laakiin main stateka main ah oo aad u biyo badan oo biyihiisu ay kasoo leexleexdaan badda ayuunbaa helaya dhaladii wuu ku yara turunturoonaya mogta markaasuu saa odhanayaa wuu qaadayaa maba furaya wuu arkayaa in warqadina ku jirto isagu wuxuuba leeyahay qashinkan meesha ka qaad wuu iska soo qaadanayaa baaggiisuu dhinac ka gelinayaa gurigiisuu imanaya inaan isku dhacaya gurigiisa markuu yimaado taleefon baa loo soo dirayaa text message waa walaashii uu ka qabanaya markaasoo nisaa hey waa inaad timaadaa arooskaygii dee waqti badan kagama hadhinayso ma soo socotid maad iska soo hormartid markaasay odhanaysaa markaasoo niya maxaan usoo hormaraya markaasoo nisaa project baanu haynaa anigii aabi aanu doonayno inaad ka shaqayso inankuba waa kambaniga ay inantani u shaqayso ninka iskale inankiisa keliya inan iyo inan buu leeyahay inantu kambaniga ka shaqaysaa inankuna corporate America iyo kambaniga wuu nacay duurkiisa wuxuu haystaa baabuurtan la dhex seexdo aarfiigoo kale ah laakiin mid kuwa waxaa jira silver stream iyo wax la yidhaahdo oo very unique ah kaasuu marba biyaha hortoodiyo meel duurka iska dhigtaa natureku ku dhex nool yahay hadhow baynu fahmi doonaa sababtuu natureku ugu dhex nool yahay marka isagu wuu diiday aabihii inuu la shaqaysto weligiina shil muu weydiisan aabihiina waa very wealthy familigu odaygu show inantan uu jecel yahay ka helay biniaadanimadeeda iyo kartideeda iyo waxaasoo dhan inankiisana wuxuu isaga haystaa dee ninkan kambanigiiba diiday inkastoo gabadhiisu kambaniga wax ka maamusho wuxuu jeclaan lahaa si uu inankiisa ugu soo celiyo kambaniga marka walaashiibaa odayga ku tiri waan soo khiyaamaynayaa waxaan odhanayaa arooskayga kasoo yaro hormaro waktina la isbengare projectna wax ka yaro liid garee intaa wax ka yara wad adigu inankii wuu imanayaa guri weyn oo dee cajiiba oo reerkoodu leeyahay buu kusoo degay cidloo iska xidhan xafiiskii buu imanayaa aabihii walaashii baa markaa gabadhii u yeedhaya waxaa la odhanayaa kaalay qof baan ku baraynaayo projectka kula wada markaase yaabaysaa odhanaysaa anigu ma jecli cidna inaan la shaqeeyo masaa lonaya kaalay anyway way imanaysaa marsaa loodhanayaa isbarta inankan markiiba indhaha isku yaro dhufanay iyadu saaba dee she's like horeba uma arkin ninkane muxuu ahaa markaasuu odaygu odhanaya waa inankaygii markaasuu odhanaysaa markaasuu odhanaya dhowrkan kambaniya aad ma garanaysaa baaritaanka ku samaynayso ayuu kaala shaqaynayaa muddo yaroo gaaban ma aha inuu ma garanaysaa shaqadaada fargelinayo intaa inka badan laakiin maadaamuu arooska u yimi dee ha ku yaro caawiyo intaa ma garanaysaa iyadoo hoosta ka yara nacsan oo isla inankoodii bay dhakada kaa saareen shaqadaada miyaanay kugu aaminsanayn maxay ninkan kuugu cidhiidhiyaan ma garanaysaa ayay meeshii ka kacaysaa the interesting thing waxay tahay I love this story sheeko aada qurux badan I don't know waxyaabaani marmarka de of course ilaahay qorshihiisa wax waliba is possible of course and the best qorsheeya waa isaga and counterka baggiisii markuu dhigay guriga uu soo galay intuu dhaladii ka saaray buu kitchenkiisa yaree gurigiisa gaadhiga ah uu ku dhex nool yahay ayuu saa u saaray meeshii waa meel iska yar spaceku moogtahay markuu dharkiisa ku tuurtuurayay meesha ayaa shaar ku dhacayaa counterka shaarkii iyo dhaladii baa isla soo dhacaya shandadii uu alaabta ku ridanayay dharka ku ridanayay ayay iskula dhacayaan ma oga inuu sito dhaladii isagu ma oga waxba ma oga markaa ma garanaysaa iyaduna wayba iska ilowday 3 bilood ka hor dhaladii ay dirtay meetingskii iyo shirkii wixii markuu kasoo noqdo meelaha soo marmaro gurigii uu kusoo noqonaya dharkiisii uu doonaya inuu shandadii ka guro dhaladii buu arkaya markaasuu onaya maxaa xaggaad ka soo gashay shandada yaabayaa meel buu iska dhigayaa hawlihiisuu iska dhammaystirayaa hadhowtuu bal dhaladii eegaya maan furo wuxuu ka soo saarayaa warqadii buu akhriyayaa
wuu la cajabayaa wuu ka helayaa isaguna waa single waaba duurjoogaa dee markaasuu dhammaadkii saxeexa waxay ku saxeexaysaa Beantown iyo dee emailkeeda Beantown oo emailkeeda ah magaceeda iyo dee telefoonka ma qorno waa Beantown sincerely Beantown yeah wuu yaabayaa this is very interesting isla markiiba telefonkiisii buu email uga dirayaa titlekana wuxuu ka dhigayaa messagena baral fariintii dhalada ayuu titleka uga dhigayaa si markiiba markay aragto ay u fahanto dee yaa regarding markaasuu naya hello Beantown dhaladaadii baan helay fariintaadii way soo gaadhay aad iyo aad baan ula dhacay ma garanaysaa shakhsiyadaada iyo braverygaaga fariidnimadaada nacam iyo creativitygaaga ma garanaysaa good for you aniguna waxaan dareemayaa inaan aada u nasiib badnahay in fariintaasi ma garanaysaa ay aniga igu soo beegantay kaasuu igu saxiixayaa real traveler oo real traveler u qoran iyadoo cashaa eedadeed la karinaysa oo iska relax garaynayaanoo kitchenkii ay ku jiraanoo ayay eedadeed odhanaysaa shaqadii ka waran horta markaas odhanaysaa shaqadii ninbaa maanta laygu celiidhiyeyoo markaas odhanaysaa muxuu ahaa markaas odhanaysaa waa nin odaygu inanu dhalay weeyaano markaas odhanaysaa siduu eeg yahay markaas odhanaysaa I mean he's handsome waa nin qurux badan laakiin dee soo wad maxaa naga galay markaas odhanaysaa alla that's a great idea inaad isla shaqaynaysaa markaas odhanaysaa I'm not interested shaqo iyo ma garanaysaa iyo pleasure iyo isku khalkhaldi maayo waxyaabahaas and I don't think isaguba interested inuu igu yahay aniguna kuma yihi strictly business adaabay xusuusiyay haddar waa inaan email iyo files u diraa uu sii akhrisanayo ma garanaysaa shirka soo socdaanu kambaniga la miid garaynayno markaas odhanaysaa warqaddii cidi ma ka soo jawaabtay markaas odhanaysaa speaking of that waaban ilaawey warqadda ma yaa helaya badweyntay ku dhacday yaa helaya intaaday dhammaystirtay baa taleefonkeedu ugu furnaa emailku waxa usoo dhacday titlekaasa hor cararay messagena baral ay tiri allah way isku naxday maxaad la naxday markaasay tiri fariintii aan diray waa la helay fariin baana ka timi alla markaasay labadoodiiba isla boodboodayaan markaasay odhanaysaa furi maayo markaasay odhanaysaa furi maayo adigu finally I don't want sheekada inaan idinku wareeriye oo aan idinka waalo in case aad daawanaysaan oo aan idin spoil gareeye it is such a beautiful story eventually adigu xoogaa kadib markay ogaato finally inuu warqaddii haystay isagaa hor ogaanaya inay iyada tahay qofku si yar oo misunderstandinga oo bilaa micno ah ay ku kala boodayaan iyadu weliba ku boodaysaa by then markan wayba iscaashiqsan yihiinba ma garanaysaa shaqadiina si fiican bay isu bartay oo reeri dabeecaddeedana dee isagu wuuba sii hayo warqaddii buu haystaa wax walba warqadda ku qoran buu isku dayaa inuu fuliyo ma garanaysaa anyway marka sheekadaasi waxay soo xusuusisay sida hawsha yaree dadka isjeceli misunderstandingka ah isfahmi waaga ah ay ugu kala boodaan why maxay dadku sida yaree hawsha yar ugu kala boodaan marar badan waxaad arkaysaa years and years and years later sannado badan kadib ayay dadki iyagoo kala bugsaday oo hadday doonaan ma garanaysaa meel isugu imanayaanoo markaasay iswaraysanayaan markaasay maxaad horta berigii sidaa oo adigu maxaad sidaa maya adaa saa sameeyey saasaan moodayay saa kamaan wadin turns out bilaa macne because sheekadani iyadu happy ending bay noqonaysaa nacam isaguna wuu yaabayaa dee dad badan baa laakiin sidaa ku kala taga wuxuu odhanayaa maxay gabadhii ka xanaaqday I mean you were doing everything right maxay ka xanaaqday and inta badan dadka qalbigoodu israaca wax yar oo bilaa macnaa oo fudud ayay ku kala tagaan marar badan aniga lafteydu waan isweydiiyaa talo waayo qofba qofka kale pride too much han ah yuu iga dareemin ama yay iga dareemin but why
waabad isjeclaydeene ballamaad balahaydeene axdi baad ba haddaad doontaan meel wada dhigateene marar badan waxaad ku ballamaysaan weligaa i ciili maysid aniguna ku ciili maayo weligeen ma garanaysaa wax walbaynu isu sheegnaa saaxiib rumaad inaad noqotaan waxaasoo dhan baa ma garanaysaa ka wada hadlaysaan diyaar baa u tihiin in qofba qofka kale ilaaliyo qalbigiisa marar badan wax yar oo bilaa micnaa ayaa haddana dadka kala kaxeeya oo aan sagaaro ka biirsan marar badan horta waxa weeyaan dee calafka markuu idin kala kaxaynaya daan calaf isku lahayn qofka wax yaroo fudud baa laydinku kala kaxaynaya because ilaahay subxaana watacaala wuxuu doonayaa gacmahaaga inuu ka saaro haddaad qof kale dee if you belong to somebody else labadiinuba haddaad laba qof oo kale ma garanaysaa calaf isku leedihiin markaa si qalbigiinna iyo gabcihiinna loo balneeyaba waa la banaynayaa excuse wax in la doono baa laydinka soo dhigayaa ma garanaysaa laakiin marar badan baa waxaa dhacdaa labadii qof inaanay isilaawinba weligood qalbiga isku sitaan qof kasta oo qofkaasi soo mara uu yidhaahdo heblaayo oo kale maaha qofba uu qof kasta oo uu barto uu barbar dhigo qofka xataa markay guursadaan dad kale ay qofkaa barbar dhigaan marar badan isweydiiyaan hebel lama heblaayo many years hadday sarkaan waxaa laga yaabaa inay markaa si daacada isugu warramaan marka waxaan isweydiiyaa tolow waxaan xataa dadku hadday kala tegayaan ay isu odhan waayaan waxaa ma jecliya iga daa marka hadduu qofku kaa dayn waayo tagba laakiin it's almost mar walba waxa weeyaan how dare you sidaad iigu quudhay that's it waxa dadku ay kala kaxeeyaa that's it waxa dadka kala kaxeeya waxa weeyaan qalbigaygaanba ku siiyey wadnahaygaan kuu quudhay yaa sideebaad u dhaawici kartaa sideebaad iigu quudhay sidaaha hadday doonto si weynba maaha qofku waxaa laga yaabaa sidaaba inaanu la jeedin qofba markaa qofku wax ka cabanayo uu yidhaahdo isagaa kaa gardarnaa ama iyadaa kaa gardarnay they need to apologize marka marar badan horta waa calaf oo dee calafku hadduu idin kala kaxaynayo waxa weeyaan qiil baa laydiin samaynayaa laakiin marar badan waxaan isweydiiyaa xataa haddii la kala tegayo waybay dadku si fiican oo intay is hor fadhiistaan ay yidhaahdaan it's just not gonna work I think it's because xataa intaa isuma quuraan not inay xumaan ka tahay marka waxaan ogaaday marar badan dadku isma laha u xumeeya marar badan waxay ka tahay qofka kale qalbigiisa ilaali because marka meeshii lagaa saarayo calafku kaa kaxaynayo waxaaba suurtagala inay protection tahayba tegiddaasi inay protection tahay adiga qofkaasi dee magaraysa ila ilaahay baa waday inta badan dee of course waa sidaasun inuu haddana adiga qalbigaaga ku ilaalinayay inaanu kuu sheegin sababta uu tegayo ama sababta ay u tegayso marka it's very interesting cid walba oo kale runta waad isu sheegi kartaan qofkii ay ahayd inaad runta isu sheegtaan qofkii ay ahayd inaad runta ugu badan isu sheegtaan oo aad hor fadhiisataan oo aad wax walba ka communicate garaysaan ayuu noqonayaa qofka marar badan aanad ma garanaysaa runta u sheegi karin hadda inantaan idiin sheegaya soomaalida iyo inankaasi they still love each other kolley markaa waxaan isleeyahay dee calafun baa kala xijinaya laba qof oo isjecel oo haddana wax ku kala gudban yihiin derbigaasi waa derbi calafun waxaa kala xijinaya ma garanaysa mid waliba haddana goonidiisa uu cidlo joogo it happens all the time anyway halkaasaan idinkaga tegayaa ilaahay wixii isjecel ha isu soo sakhiro ha isu soo dhaweeyo oo qalbigooda ha isu qooyo